السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنا وعنا وناكسن إذا الهانتين بقى كسر هذا W3 tag فيديو ما أنتوا حكوا سابسين هاي HTML comment مدونسة coding كي عاد مدة سو برنسي أما web development كي عاد مدة سو سمينسي إن إلا وين ويا واحد عضه coding كمرك لبرنا يو إن سي سهلا أو فضل لوجي إلا ومركبة haddii codingka aad ka baranaysay ama web development haddii aad ka baranaysay online ama YouTube oo sida channelkan oo kale aad ku xidhnayd coding editorki aad codeka ku soo sameynaysay haddii aad dib ugu noqoto waxaad arkaysaa codeka inuu tarmay oo kordhay oo farabatay oo haddii aad dib u eegto oo wixii aad soo samaysay oo dhanba aanad waxba ka fahmaynba oo wixii oo dhanba aad ilowday oo waxyaabaha qaar aad leedahay talow kani muxuu ahaa kani muxuu taagan yahay marka videogan wuxuu ku saabsan yahay ku tusi doonaa qaab ku saamixi doona inaad codekii aad soo baranaysay muddada inaad ilaawin mar dambe oo xitaa sanadka bacdi haddii aad dib ugu noqoto oo eegto ay ku fududaanaysa inaad markiiba xasuusato oo fahankaagu markiiba uu soo noqdo waxaa la yidhaahdaa HTML comment waa comment lagu darayo HTML-ka ama code editor-kaaga aad samaynayso aan code editor keeni maadaama inoo soo socotay course HTML ah aan code editor keeni aan tagno code editor keena haddii aad arki kartaan wuu tarmay waanu batay waa intii yarada HTML-ka aynu sameyno kaliya laga soo bilaabo HTML-ka halkii aanu ku bilownay ilaa halkii u dambeysay waa aragtaan waa wada code waxaa laga yaabaa haddii aad maalmaha ka mid ah israa bal wixii fahankaaga sidoo yahay bal dib u eeg inaad garan weyday u badan tahay marka waxaan sameynaynaa waxaan ku dareynaa HTML comment waa commentkii caadiga ahaa taqaanay oo kale sida YouTube oo kale markaad comment aad ka soo qorayso ama channelka imika videogan comment-ka ka soo bixin doontaan ama Facebook comment-ka aad ku qori jirteen dadka web developers-kana waxay leeyahay qaab ay comment u qoraan waxaan oran karnaa waa qaabka dadka web developers-ka ay u chat gareeyaan HTML comment waxaa loo isticmaalaa laba qaab waa loo isticmaalaa tusaale ahaan waxaad u shaqaysaa shirkad oo kale aad u shaqaysaa web developer u tahay wadamadan reer galbeedka habeen iyo maalmo waa la shaqeeyaa tusaale ahaan waxaad shaqaysaa habeenkii baad shirkadda web developer u tahay qof kalaasna web developer shirkadda oo ah oo maalintii soo gala marka ay isbedelaysaan ee adigu shaqada ka sii baxayso waxaa la rabaa inaad u dhaafto comment aad code editor-ka comment ugu dhaafto oo aad u sheegto shaqadu halkay maraysay iyo halka uu kasii amba qaadayo marka qaabkaas waa loo isticmaalaa su-aasha iman kartaa waxay tahay code editor-ki haddii aan ku qoro comment aan dhex geliyo ama chatka ama wada sheekaysiga aniga shaqaalaha kalena dhex maraya maadaama aanu professional ahayn miyaanu ka soo baxeen website-kii my website-ka kama soo baxo HTML comment waa piece of code the browsers ignore HTML comment waa code browsersku ay ignore gareeyaan marka website-ka shirkadda waxaa laga yaabaa inuu already la publish gareeyay oo suuqa ku jiro oo dadkoo dhamma ay online-ka wax ka eeganayaan marka comment-ka adiga shaqaalaha kale ay soo qoraysaan kama soo baxayo website-ka kama soo baxayo ama browser-ka qaabka waa loo isticmaalaa waxa kaloo loo isticmaalaa haddii shirkadda aad sanad dhow shaqaynaysay oo sanadkaaba code aad soo qoraysay oo sameynaysay waxaa laga yaabaa inuu aad iyo aad u farabatay oo intaasoo page uu yahay marka haddii aad rabto inaad wax ka bedesho codeka oo dib ugu noqoto waa kugu adkaanaysaa inaad wax walba siday u hayaan markiiba si sahlan inaad u hesho laakiin haddii markii horeba aad raacisay comment aad meel walba comment ku qortay oo aad tiri halkan waxaas ka bilaama halkan waxaas yihiin hadhow waa ku fududaanaysaa and it's really good practice to use a HTML comment and it makes code maintenance really easy qaabkan waa loo isticmaalaa marka insha Allah tusaalayaasheenii ama code editor-keeni waan tegaynaa waxyaabihii hore aynu soo sameynay HTML-ka ahaa ayaan mid walba waxaanu ku qoraynaa aanu ku darsanaynaa comment hadhow ku xasuusiya kuu fududeeya inaad fahankaagu soo noqdo markiiba code editor-keeni aan tagno
halka ugu dambaysa tag markii ugu dambaysay waxaanu qaadanay HTML list baynu qaadanay oo waxaanu ku darnay unordered list, ordered list iyo description list. marka kii ugu horeeyay aan tagno halka UL ay ku qorantay oo kale oo ahayd unordered list. haddii code editor-kaaga dib ugu noqoto waa laga yaabaa inaad tiraahdo UL tani maxay ahayd oo aad garan weydaba. laakiin waxaanu sameynaynaa si aad u xasuusato halka UL-ka korkiisa waxaanu gelinaynaa wax la yiraahdo HTML comment. HTML comment waxaa loo qoraa qaabkan. waxaad qoraysaa angle bracket, then waxaad qoraysaa calaamadda exclamation mark, waxaad taabanaysaa laba dash. haddii aad arki karto wixii ka hooseeyo dham waa inaga dameen, raalli noqda, leydhka inaga damay. sababta ay qoraaladii ka hooseeyo dhamana kalarkooda isu bedelena insha allah waanu qaadanaynaa. kan kuwa ku xiga noqon doonaa markaan kan dhameyno ka baxna aan sharaxna kuwa kale ayaad ku fahmi doontaa. marka laba dash markaad qorto, labada dash ka bacdi comment-kaad ku qoraysaa. marka waxaad leedahay unordered list, unordered list. macni listigan halkan ka bilaabmaya waa unordered list. af Soomaali aad ku qoran doontaa wax alla wixii aad ku xasuusan karto. waa comment-ku waa note oo kale. ama waxaan oran karnaa buugaagta markaad iskuulka la dhiganayo, buugaagta iskuulka laga siiyo kale korkooda wax lagu dul qoran jiray. marka waa sidoo kale note aad hadhow wax ku xasuusato ayaad ku dul qoraysaa. marka maxay nidhi unordered list, haddana waxaad qoraysaa dash dash waanaad soo xidhaysaa. markaad soo xidho qoraalada kale kalarkooda artaa inuu soo noqday ama leydhkii waa inoo soo noqday. unordered list waad qoratay. hadhow markaad muddo ka bacdi aad soo noqoto aad codekii aad soo samaynaysaa dib istiraah u eeg, waad fahmi kartaa wax halkan ku qoran ama UL tan inay tahay unordered list. okay, aan ka gudubna hoos u deg. tan oo kale OL iyadana waa laga yaabaa inaad tiraahdo tolo OL tan maxay u taagnayd, maxay tahay. iyadana comment baynu raacsanaynaa si iyadana hadhow aynu xasuusano. waa angle bracket, exclamation mark, laba dash ama dash dash. waxaad qoraysaa markaa comment-ki aad rabtay ama note-ki aad rabtay. OL-tu waxay ahayd ordered list, ordered list. halkan ordered list baa ka bilaabmaya. then dash dash soo xidh. kaana waynu note aan ku xasuusan karno gelinay. hoos uga deg. halkan waxaa ka bilaabmayay DL oo ahayd description list, waa listigii qeexitaanka lahaa. laakiin muddo ka bacdi haddaad dib ugu soo noqoto waxaa laga yaabaa inaad markiiba xasuusan kari weydo inuu description list ahaa ama D iyo L2 inay u taagan yihiin description list. marka asagana comment inoo gelisa inaan ku xasuusano. angle bracket, exclamation mark, dash dash, and description list. description list. then a dash dash, dash dash soo xidh. marka meel kasta aad rabto markaad codeka bilaabaysaba HTML list is good idea inaad la bilowdo oo mid walba aad ku calaamadsato. marka kan hadhow haddaad dib ugu soo noqoto way ku fududay, waayo korkiisa waxaad ku qoratay description list. HTML comment kama soo baxaysa website-kii aad samaysay, qoraalkaasi kama soo baxaya. waayo waad aragtaan farta kale uu ka duwan yahay, waa off. marka kama soo baxay website-kii. waxaa arki kale oo keliya qofka code source-ka eegaya ama qofka code editor-ka arkaya ama eegaya, ama adiga iyo labada qof ee code editors-ka ah ama developers-ka isbedelaya, shaqada company-ga isbedelaya ayaa fariin isugu dhaafi kara. okay, kaana waynu qoranay order list, description list. maxaa kale aynu xasuusanaa halkaas halkii qoraalka badan aynu gelinay oo nidhi maanta oo taariikhdu ay tahay qoraaladii ugu horeeyay oo B iyo B. korkoodana waxaan ku qoran karnaa paragraph. waxaad tidhaahdaa angle bracket, exclamation mark, dash dash. halkan waxaa ka bilaabmaya paragraph, and dash dash soo xidh. taana hadhow haddaad dib ugu noqoto waad xasuun kartaa inay qaabkani ay tahay qaabka paragraphka loo sameeyo. halkan ka sarreysa H1, H2, H3 iyagana waxaa loo isticmaalaa ciwaanada farta waaweyn ah.
laakiin markaad muddo ka bacdi ay sidan oo kale kaaga hor timaado ama code editorka aad dib ugu noqoto ma xasuusan kartid wax loo isticmaalo h1 iyo h2 baad ku aragtaa meesha marka iyagana si aad u xasuusto waxaad gelinaynaa comment angle bracket exclamation mark dash 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 waxaan odhanaa h1 h2 waxaa loo isticmaalaa oo kale ciwaanada oo kale ciwaanada oo kale haddaad doonto Soomaaliha doonto dheh ciwaanada waaweyn dash dash soo xidh marka meel walba aad rabto inaad hadhow xasuusato comment-kaas la geliyaa okay taa waynu fahanay in qofka web developer-ka qofka kale web developer-ka ee shaqada uga dambeeya uu comment ugu dhaafi karna waynu fahanay qaab saddexaad oo kale loo isticmaalaa jira inoo soo deji wax yar qaabka saddexaad kale waxaa jira qaab saddexaad oo kale oo loo isticmaalo oo مثلا codingkii aad soo qortay hal code baad ka shakiday inuu xoogaa ama code cusub aad gelisay ba xoogaa khalkhal keenay oo aad ka shakiday codekii inaad masaxda ma rabtid waayo haddii aad wada masaxdo waxaad ka baqaysaa in codingkii muddada aad soo samaynayso dhammaan inuu kaa khalkhalo marka xalku muxuu yahay maxaad samaynaysaa waxaa jira qaab loo qariyo ama loo hide gareeyo ama loo disable gareeyo hal code oo keliya oo website-ka ku jira tusaale ahaan waxaanu furanaynaa aan soo furo website-keennii ama page-keennii index-ka ha inoo yaalay desktop-ka website-keennii waaba kan marka masalan sawirka inoo saaran ama sawirka kuugu jira ayaa laga yaabaabo dadka customerka kugu xidhan ee internetka website-ka kala socdaa inay muran ka keeneenba oo yiraahdeenba waxay sawirkan qaawanaad soo geliseen website-kii marka sawirkaas inaad ka saartaa la rabaa code editor-kaaga haddaad ku noqoto sawirkii haddaad masaxdo waxaad ka cabsi qabtaa oo in codekii oo dhan khalkhal uu kaa garo ama hadhow aad xasuusan kari weydo sawirku meeshuu kaga jiray website-ka marka adiga oo aan masaxayn sawirkii ama codekii iska wada masaxayn codeka sawirka kaliya ayaynu daminaynaa ama hide garaynaynaa ama disable garaynaynaa marka iyadan waxaa loo isticmaalaa html comment marka inoo soo deji wax yar sorry marka waxaanu tegaynaa sawirkeena codekiisii meeshuu sawirku kaga jiray waa kan waa img src sawirka linkigiisina waa kaas marka sawirka hortiisa ama codeka aad rabto inaad damiso ama hide garayso codkiisa bartuu ka bilaabma tegaysaa bartuu ka bilaabma markaad tagto sidii imika aynu qorayna comment-ka oo kale aad u qoraysaa angle bracket exclamation mark dash 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 then halka u dambaysana waad tegaysaa waxaad ku qoraysaa yana dash dash then waad soo xidhaysaa markaad soo xidha save garee website-keennii tag refresh dheh sida aragtaan sawirka wuu ka baxay sawirka website-ka wuu ka baxay marka codekaagii maad masixin hadhow haddii qoladii customerka ahayd ama dadka kugu xidhnaa markaad qanciso oo sawirkii murankii ka yimi aad xal u hesho codekii iskamaad masixin wax wala halkooda bay ku yaalaan marka insha Allah waxaan sawirkiiba haddana dib u soo celinaynaa code editor-keennii tag هلا نقطة وحير code editor كان مركان تقني code كاني ما ينان مسحين وينو يلا ولي مركا وحنا مسحنا أو كلية comment key comment كالك يقول رس أنتي وهوا جرانسها مسح أنتي دمرنا كمسح then واحد سميسها save ده save مركا ترى هذا code editor كده حيث مركات كسب كريس واحد تجيسا website كني website كي تك refresh كره ما أعرف تصور كذا إنه سيدي سينو قصون نقطة مركا قاب كاتنا والله استعماله أذن حول بدن إسكلين أو code كي إسكام الصحين
oo codekii kale fara badnaa ee ku saxda aan khalkhal iska gelin waxaa la isticmaalaa un html comment ama comment outna waa la yidhaahdaa oo hal code oo gaarunbaad ayunbaad deminaysaa marka taasna waa loo isticmaalo waxaan rajaynayaa html comment iyo qaabka loo isticmaalo inaad kala fahanteen videogu wuxuu ku saabsanaa videogu intaas ku saabsanaa oo runtii it's really html comment in la isticmaalo waa good practice waana idea fiican waxaan kuu fududaynaysaa wax walba inaad hadhow xasuusato oo hadhow haddii khalkhal yimaadana aad wax walba aad garan karto meeshii aad ka heli lahayd ama aad kala soo bixi lahayd marka videogu intaas ku saabsan yahay waa kooban yahay insha allah laakiin waxaan rajaynayaa faa'iidada uu xambaarsan yahay inay ka ballaaran tahay minidada uu ka kooban yahay haddii ay tahay markii koobaad channelka aad daawanayso insha allah subscribe garee siina share garee channelku weli wuxuu cusub yahay waxaan rajaynayaa dad badan oo daneynaya inay wax bartaan inaanu helno marka insha allah social media ku share garee aad baan idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh